madaxdu inay u daneeyaan caruurta mustaqbalka iyaga waqtigooda waa dhammaaday waxay haystaan ay noolaan karaan waa waqti kooban laakiin waxaa la rabaa in caruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sharafka iyo karaamada Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan waxayna ku jirtaa in la isfahmo in aqligu shaqeeyo waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1962 waxaan ku soo barbaaray xaafadan waa bari la yiraahdo halkaas yaan dugsiga hoose aan uga baxay iskuul la yiraahdo Forto Sheikh ama Kooda Luliyo kadibna xaafad la Axmed Jadiid yaan u wareegnay oo laba dhagax meesha la yiraahdo Soomaalida laba dhagax taqaana iskool la Maxamed Xarbi yaan dugsiga dhex ka dhameeyay kadib dugsiga sare waxaan u aaday La Foole halkaas oo aan farsamada gacanta aan ka dhameeyay qaybta dhismaha iyo design iyo construction maadada aan ugu jeclaa waxay history-ga ama taariikhda xitaa aan jaamacadda kaga baxay Mareykanka history-ga maxaa yeelay taariikhdu waxay baraysaa qofka wixii hore u dhacay iyo hababkii lagu xaliyay iyo sidii adduunka u kala ahaa marka ma moodin anigu inaan noqonayo siyaasi markaan yaraa laakiin kulli taariikhdan aad u jeclaa tuutaha uga shanay oo qoray qalabka u sidno waa wadankeena iyo caradeena hooyo inaan difaacnaa aniga shacabka ayaanu saraakiil u nahay saraakiisha dhammaanteedna waa inay go'aankaas way qaa'ilo qabaan dhammaan militariga dhammaantiis sidaas ayay qabaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed biliis iyo militari walow nabad sugid waxaynu danaynaynaa shacabka Soomaaliya rabitaankooda ciddii shaqsi askari u ah ma ahan qof muwaadina shakhsi askari uma ahin dalka iyo dadka ayaanu askar u nahay annagu aragnay marka 20 sano arrintan dhex socota shacabkeeni waa baabay dadkeeni waa baabay guryaheeni waa baabay faqri annaan u baahnayn baan la baday faqri annaan ahayn baan la baday inaan ku noolaano yaani dulli waana la duleeyay dulli baan la baday ma aragtay dadku waxay ku fiirinayaan inaad ka hadlayso waxay ka fiirinayaan waxa ka hadlaysa inay daacad ka tahay inay ka tahay siyaasaddan Soomaaliya wuxuu u yaqaanaan khiyaano marka aniga waxaan uga duwanahay isleeyahay dad badan waxa aan ku hadlo iyo waxa aan sameeyo waa isleeyihiin macnaha waxaan aaminsanahayna waa caddahay waa sheegi waxa aanan raali ka ahayna way caddahay Soomaalidu warku waa isku gudbiyaan been ma sheego ballan beenana ma qaado ammaanada waataan ka hadlay in la ilaaliyo wixii ummadaas aad u hayso taas marka intaas markii aad aaminsan tahay wixii marka soo gala oo dhaqaale ah waxa khasaba dadka inay wada gaarto marka oo aysan dhicin meel wax ka leak oo ka sameynaa wax ka daadanayaan macnaha ummadii inay helaan waxay xaq u leeyihiin arrintaas waxay keentay marka wax aanan horay u dhicin waxaanan hore u dhicin inay noqoto iyo tan kale waxa waaye naxariista saan ku sheegay oo aan saaray focuska ama diiradda aan saaray dadka masaakiinta ah iyo curyaamada annaga shucuurteena iyo damiirkeena iyo jacaylka xukuumadda prime minister ka tahay ayaana soo kicisay waxaan nahay haweenkii Muqdisho dhalinyaradii askartii cuqaashii maanta magaalada waxaan ka rabnaa laba maado in aad maaragtay badan maraakiib la keeno dal kale hadaad noo haysid aadna rartid hadaadan noo hayna dalkeenan rabnaa iyo xukuumadda adigu la joogtid waxaan kaloon ka rabnaa laba maadaan rabnaa waxaan rabnaa natiijada cid kale oo dhagahayna u furihin ma jirto maanta shacabku ay dhageysanayaan waxaan ka rabnaa
inaan guryaheenu ku noqonayno iyo inaan shaqadeena wadanayno waxaan rabnaa waxaan ku seexano xala maana seexan waxa way qalbigaana laga dilay indhahaana laga tuuray dhibaato iyo basaasa suuqaya daran gaajada nooga maxaan rabnaa hal isku hoydo hal isku hoydo caruurta halo tago soo ma garan waa mahadsantihiin maanta hadda siidkan jeefanayna maya natiijadu waa fiican tahay insha Allah wax walba waa khayr si fiican bay ku dhamaan doonaan hal isku hoydo ya habeen wanaagsan niyada khayr ha u sheega bir shaqadeena wadanayna niyada khayr u sheega بعد ما تشغليني في عنتها شغليني حمين والله بس يحن شعبكم بس يحن إلا عندك هاي لو مدة رتبة جدا وعيزة شعبك إن شاء الله بحال يحن يا فرماجو واني كيري نيك ندل على توكتو واني شرعك هرقليه لكن انت ددكاس اي ودنك هايين واحد على ما ندريم ما انت عداله ندريم مشارك عيدك لا سيناي نبدقليو دقائق ما دون فرماجو دونينا حدو دعان wax jiro oo Soomaali ma jirto madaxweyne ma rabna oo dawlad ma rabna waxa rabna male nin walba ha noqoto siyaasadan waa saas oo kala waay dadka ku wada shaqeynta fiican leh oo runtii wax soo ogol oo hadba talada isu dhiibaya yaa tala fiican ka dhalata oo macnaha waxay dhaliyaan markaas goolal laakiin hadday is qabtaan ama qof si gaar ah wax u wato waxay imaanaysaa in ay ku dhamaato fashil inta badan siyaasadda Soomaaliyeed saas ku dhamaataa oo waar is qabsadaa waxaan isku qabsadaa waxa waaye qof walba si gaar wax u wataa marka la yiraahdo hadda Soomaaliya beel yaa la yiraahdaa moogtahay aniga beel ahaan waxaan ku jiraa beesha sportiga jifada ilaan beesha naftiga jifooyin leedahay moogtahay jifada kubadda cagta مسؤول هذا تاعي وكل علنايا مسؤول هذا تاعي dadka waxay ku nool yihiin ay cunaan ka wax ka wanaagsan wax xaraan ma cuni kartid dadka ay mas'uulka ka tahay waa inay og tahay waxay awoodaan waa sax madaxdu way cuni karaan oo positionkii way joogaan inay cunaan Soomaali waxaan oran jirnay Brimo iyo Sugunta iyo Terso dhaylo iyo wax alla wixii maaragtay cuntaa oo wanaagsan laakiin anigu markaan joogay meesha waxaan ogaa dadku inay cuni kareen wixii wax cuni kara digirta ama cambuulada wax la yiraahdo marka aad waxaan u cuni jiray cambuulada dadka ila shaqeeyana waa weydiin kartaa
soomaali waa dad wanaagsan dad waalaa tihiin in aanan la rajo dhigin ilaahay naxariistiisa lagama quusto laakiin waxaa loo baahan yahay in qof walba oo soomaaliyeed qeybtiis uu ka qaato sidii dalkan uu dhib uga bixi lahaa dalkan uu u heli lahaa dowlad wanaagsan oo cadaalad ah oo ummaddiisa ama ummadda u shaqaysa mas-uuliyaddana ma saarna madaxda keliya mas-uuliyadda waxay saaran tahay qof walba oo soomaaliyeed oo maxaan ku raahdaa oo qaangaar ah ayay saaran tahay marka hawshan waa howlna wada taalla howl gaar ahaan aniga ii taalla ma aha howl madaxda u taalla ma aha howl ma aha keliya siyaasiyiinta u yaalla waa howl ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee ku jirto sharafkoodii iyo karaamadoodii iyo mustaqbalkoodii iyo nabadgelyadoodii marka waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay ay ka shaqeeyaan oo ay helaan dowlad u qalanta وقدت يا قميني